Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, distinguished members, thank you very much. Jordan treasures its long ties of friendship with this great institution, and I appreciate your invitation to speak here today. My friends, people thrive where there is mudane madaxweyne xubnaha sharafta leh waad mahadsantihiin urdun waxay ilaalinaysaa xiriirka qaaliga ah ee qotada dheer ee ay la wadaagto ururkan weyn tixgelin bay ii tahay casuumaadiina si aan halkan uga hadlo yurub waxay ka mid tahay xulafada muhiimka ah dadaalkan gaar ahaan inay gacan ka geysato sidii loo joojin lahaa cabsida dunidu ka qabto islaamka suntani waa mid ku dhisan afkaaro khaldan oo islaamka laga faafiyey oo ay gacan ka geysteen argagixisadu waa sababta ay muhiim u tahay inaan caddeeyo micnaha dhabta ah ee islaamka aniga iyo muslimiinta kale ee aan xisaabta lahayn ee tirada badan waxaana la baray markaan yarayn in diintayadu ku dhisan tahay inaan xurmayno oo xaq dhowrno dadka kale nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yidhi midkiin iimaan heli maayo ilaa uu kan kale la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay tani waa qiyamka islaamka waxay caddaynaysaa wanaagga islaamka magacyada eebbe dhexdooda waxa ku jira oo aynu maqalnaa arraxmaan arraxiim naxariis badane eebbaha naxariista midda guud iyo midda gaar ahaaneedba noloshayda oo dhan maalin kasta annagu waxaannu maqalnaa oo isticmaalnaa salaanta ah assalaamu calaykum waa duco aad ugu rajaynayso qofka kale nabadgelyo iyo naxariis taas ayaa muujinaysa inaad muslim tahay 1,000 sano ka hor heshiiskii Jeneeva lagu gaaray nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu amray ciidamada muslimiinta in aanay dilin carruurta haweenka odayaasha waaweyn in aanay jarin dhirta in aanay dumin goobaha lagu cibaadaysto ee alla lagu caabudo sida masaajidiyada iyo kaniisadaha waxyaabahaasi waxay ka mid yihiin qiyamka islaamka oo markaan ciyaal iskuulka ahayna la soo baray oo nala ku barbaariyey inaan la dumin oo la waxyeelayn goobaha allah lagu caabudo kuwani waa waxyaabaha caddaynaya inaad muslim tahay diintayadu waxayna faraysaa ilaalinta karaamada qof kasta ragga iyo dumarka dariska martida iyo qariibka sifooyinkan fiican ee ku jira diinteenna islaamka waxa aaminsan 1.6 bilyan oo muslimiinta daafaha caalamka ku nool sidaas darteed uma ogolaan doono koox yar oo ka been sheegaysa xumaynaysa sawirka islaamka inay afduubtaan diinteenna toosan ee xaniifka ah waad mahadsantihiin the world's Muslims their greatest target. We will not allow them to hijack our faith. Thank you very much.